kulan wacan wanaagsan daawadayaal markasta naga daawanaysaan ku soo dhawaada warka Samareeb TV khudbada warka Samareeb TV ugu door koran ayaa waxa kamid ah dhammaan dunida muslimka iyo dalalka ay ku nool yihiin dadka muslimiinta oo maanta looga dabaaldegay munaasabada Ciidul Arafa qarax khasaare badan dhaliyay oo ka dhacay magaalada Baghdad ee caasimadda wadanka Iraq kooxo burcad hubaysan oo Cape Town xalay dil dhaawac iyo boopanteed ay u geysteen dhalinyaro Soomaaliyeed Canada oo dalkeedu ogolaatay dadka Mareykanka ah ay qaatay talaalka COVID-19 madaxweynaha Koreada Koonfureed Moon Jae-in oo meesha ka saaray qorshihii ugu qaybgali lahaa xafladda furitaanka ciyaaraha Olombikada adduunka daawadadan cusubta ugu soo biir subscribe saar gambalka furun si aad u heshid wararkii ugu dambeeyay aynu soo dhigno waa maalnimo Talaado taariikhdu ay ku beegan tahay 20 July 2021 kuna soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale dhameystiran ayna ku bilaana dhammaan dunida muslimka iyo dalalka ay ku nool yihiin dadka muslimiinta ayaa maanta looga dabaaldegay munaasabada Ciidul Arafo inkastoo saacadaha waqtiga kala duwan yihiin daafaha dunida haddana si isku mid ah ayaa muslimiintu ugu dabaaldegayaan munaasabada ciida Soomaaliya ayaa kamid ah meelaha sida weyn loogu xusayo munaasabada Ciida Arafo iyadoo dadweynuhu salaada ciida ku oogayaan guryaha iyo masaajidada Ciida Arafo ayaa sanadkan ku soo beegmatay iyadoo hoos u dhac laga dareemayo heerarka xanuunka COVID-19 ee gudaha Soomaaliya ugu yaraan 25 qof ayaa lagu dilay tabaneeye kalena waa lagu dhaawacay weerar bambaano oo lagu qaaday suuq mashquul badan oo ku yaala magaalada caasimadda ee Baghdad sida ay sheegeen ilwareedyo dhanka amniga ah qaraxa ayaa ka dhacay suuq ku yaala waqooyiga magaalada Sadar xilli qoysasku isu diyaarinayeen Ciidul Adha oo maanta ku beeganeed wuxuu ahaa qaraxii ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca Baghdad muddo 6 bilood ah kooxda la magac baxday dawladda Islaamka ee IS ayaa sheegtay mas'uuliyadda waxayna sheegeen in mid ka mid ah xubnahooda uu qarxiyay jaakad lagu rakibay walaha qaraxa waxa sidoo kale sheegatay weerar isnidaamin ahaa oo ka dhacay bishii Janaayo fagaaraha Tayaraan kaasi oo ay ku dhinteen 32 qof waxa uu qaraxaasi ahaa kii ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca caasimadda 3 sano gudahood ilwareed dhanka ammaanka ah ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in haween iyo caruur ay kamid ahaayeen dadkii ku dhintay weerarkii isniintii ka dhacay suuqa al-Wihilaad afayeen u hadlay militariga Iraq ayaa sheegay in Ra'iisul Wasaare Mustafa al-Qadimi uu amar ku bixiyay in la soo xiro taliyaha guutada booliiska federaalka ee qaabilsan amniga aaga suuqa isla markaana waxa bilaabmay baaritaano dhanka kale weerar gantaalo ah ayaa lala beegsaday xarunta madaxtooyada Afghanistan intii lagu guda jiray tukashada salaada ciida laakiin madaxweyne Ashraf Ghani iyo dadkii kula tukanayay barxadda madaxtooyada ayaa si degan u sii watay tukashada sida ay muujiyeen muuqaal laga baahiyay TV-ga afayeenka wasaaradda arrimaha gudaha Marwis Istanekzai ayaa xaqiijiyay in 3 gantaal ay ku soo dhaceen banaanka qasriga madaxtooyada kooxda Taliban ayaa beenisay in ay ku lug lahaayeen weerarka lagu qaaday qasriga aadka loo ilaaliyo waxaana afayeenkooda Zabihullah Mujahid uu fariin cod ah ugu sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in dagaalyahanadoodu ay ku jiraan xaalad difaac inta lagu guda jiro dabaaldegida ciida si ku duwan sanadihii hore Taliban si rasmi ah uguma dhawaaqin xabad joojin ciida toddobaadkan bishii Maarso ee sanadkii hore 4 gantaal ayaa ku dhacay agagaarka dhismaha qasriga intii lagu guda jiray caleemasaarka madaxweyne Ghani waxaana mas'uuliyadda weerarkaas sheegatay maleeshiyada Taliban amni xumada ayaa ku sii kordhisay Afghanistan toddobaadii la soo dhaafay taas oo inta badan ay sababtay dagaalada ka socda goboladeeda iyadoo ciidamada shisheeye uu hogaamiyo Mareykanka ay dhameystireen ka bixitaankooda isla markaana Taliban ay bilaabeen weeraro waaweyn oo ay ku qaadeen degmooyin iyo xuduudaha isniintii diblomaasiyiin 15 dal iyo wakiilada NATO ee Kabul ku sugan ayaa ku booriyay Taliban in ay joojiso weerarada saacado yar kadib markii maleeshiyada Taliban iyo dawladda Afghanistan ay ku fashilmeen heshiis xabad joojin ah wadahadaladii ka socday magaalada Doha ee dalka Qatar kooxo burcad hubaysan ah ayaa xalay magaalada Cape Town ee wadanka Koonfur Afrika ay dil iyo dhaawac boob hantiyadeed ugu geysteen dhalinyaro Soomaaliyeed Allah u naxariistay Ahmed Macalin Jimcaale ayaa dhintay halka walaalkiisa ka weyn ee Maxamed Macalin Jimcaale uu dhaawac yahay kadib markii ay kooxo hubaysani weerar ku galeen dukaan ay ku lahaayeen xaafadda Kara Ifuton ee ka tirsan magaalada Cape Town ciidamo ka tirsan
booliiska Koonfur Afrika ayaa tagay halka weerarka uu ka dhacay iyaga oo halkaasi ka sameeyay baaritaano la xiriira sida uu dilka u dhacay iyo sidii lagu heli lahaa burcadii ka dambeysay dilkaasi. dalka Koonfur Afrika ayaa waxaa inta badan lagu dhibaateeyaa ganacsatada Soomaalida ah, waxaana toddobaadkii hore rabshadihii ka dhacay meelo ka mid ah dalkaas lagu dilay ilaa 4 dhalinyaro Soomaali ah. madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa meesha ka saaray qorshihii uu uga qaybgali lahaa xafladda furitaanka ciyaaraha Olombikada ee ka dhacaysa Japan maalinta Jimcaha sabab la xiriira cadaawadda labada dal u dhaxaysa. gardaradii Japan ee ku wajahnayd Kuuriyada Koonfureed intii lagu jiray dagaalkii labaad ee adduunka ayaa waxay sare u qaadaysaa xasarada xiriirka labada dal. hadallo meel ka dhac ah oo la sheegay in diblomaasi Japan ah uu ku sugan magaalada Seoul uu ka sheegay madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa sare u sii qaaday carada. Moon ayaa la filayay in inta uu booqashada ku guda jiro uu wada hadallo la qaato ra'iisul wasaaraha Japan Yoshihide Suga. dowladda Canada ayaa sheegtay in laga bilaabo 9 bisha Agasta dadka Mareykanka ah ee sida buuxda u qaatay talaalka xanuunka COVID-19 loo ogolaan doono in ay dalka Canada soo gali karaan kadib 16 bilood oo xuduudda Canada ay ka xayirneed muwaadiniinta Mareykanka ah. dadka u dhashay dalalka kale ayaa iyagana loo ogolaan doonaa in ay Canada galaan 7 bisha Sebteembar haddii ay talaalka si buuxda u qaataan. diyaarad ay leeyihiin militariga Nigeria oo raadinaysay dal lagu afduubtay waqooyiga dalkaas ayay soo rideen kooxo burcad ah sida ay shaaciyeen taliska militariga. afhayeen u hadlay ciidamada cirka ee Nigeria ayaa sheegay in diyaaradda oo nooceedu ahaa Alpha Jet ay si guul ah ku dhamaysay howlgal ay fulinaysay xilligii la weerarayay Axadii. wuxuu intaasi ku daray in duuliyihii diyaaraddaasi oo lagu magacaabo LT Abiyomi Diaro uu ka booday kadibna adeegsaday xeelado uu ka badbaado si aysan gacanta uga dhigin burcadda. dadka deegaanka ayaa gabaad siiyay duuliyaha sida uu sheegay afhayeenka. weerarkan ayaa ka dhacay xadka kala qaybiya gobolada Zamfara iyo Kaduna. xukuumaha hawaysan ayaa lagu eedeeyay in ay ka dambeeyaan afduubyo dhowaan loo geystay qaar ka mid ah dadka deegaanka ee ku sugan waqooyiga galbeed ee dalka Nigeria. arday iyo carruur iskuuley ah ayaa si gaar ah looga bartilmaamaysadaa weerarada ay fuliyaan. in ka badan 1,000 qof ayayna afduubteen tan iyo bishii December. inta badan dadkaasi ayaa lagu soo waramayaa in la sii daayay kadib markii laga bixiyay madax furasho, laakiin qaarkoodna waa la dilay. intaas aynu ku soo afmeerina warkaad kala socoteen Samareeb TV. intaan warkan war lama kulma doono waxaa idinka tegaynaa sida ay nabadgelyo.